hadalhaynta ugu badan ee isbuucii la soo dhaafay baraha bulshada ee Soomaalida ay ku kulanto waxa ay ahayd arinta la xiriirto wardaxaasha ninkeeda. Dad badan ayaa waxa ay isweydiiyeen kumuu ahaa ninkan isaga ah. Haddaba waxaan dib kuugu celinayaa sheekada halkii ay ka soo bilaabatay. Ayaan Kaaba oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed si gaar ah kuwa da'yarta ah ayaa waxa ay goob munaasabada oo lagu casuumay ka tirisay Maansayar taas iyada ah oo ay uga faalloonaysay in raggii dhalinyarada ahaa ay ka waasay nin gayaankeeda ah oo guur ay la wadaagto. Sidaas darteedna waxa ay sheegtay in ay weerar ku qaadayso gabdhaha xaasaska ah ee la qabo si ay ula wadaagto nimankooda, waxaana ay magacdhowday wardaxaashi. Waxa ay sidoo kale goobta ka sheegtay in magacaasi wardaxaashi uu yahay erey suugaaneed oo uusan ahayn mid qof gaar ah loogu dan leeyahay, waxaana erayadeedii ka mid ahaa weli way socotaay rag waxa ugu liita kana soo waclaydkana weydiiyo taswiirta waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaaday ama aan la waraagi wardaxaashi ninkeeda. balse waxaa ka soo jawaabtay mid ka mid ah hablaha Soomaaliyeed oo erayo suugaanaysan iyaduna baraha bulshada soo marisay, waxaana ay sheegatay inay tahay wardaxaashida la sheegayo. waxaana ay Kaaba u sheegtay in arinta ay baraha bulshada u soo marisay ee ah in ninkeeda ay la wadaagayso ay ku abuurtay walaac aad u xoogan, isla markaasina ay cabsi badan ka qabto, sidaas darteedna ay faraha uga qaado ninka ay wada joogaan. wardaxaashi lafteedu waa tan maanta hadlaysa ayaanay warwarkaagu wax dhan buu ii wareeshay oo warkaaga dhageystay, wax dhan baan ka wareegay ka weecweecday codkaaga, wax dhan baan isiraahday waa dambe isxasuusaa. intaa wixii ka dambeeyey arrinku waxa uu noqday mid baraha bulshada dhex qaada iyo Soomaalida dhexdeedaba, waxaana ku soo jabay ama ku soo hoobtay dad badan oo maansooyinka gaaban ka soo tiriyey, kuwa yiraahdo wardaxaashi ninkeedu waa aniga, halka gabdhihiina ay dhaheen wardaxaashida la sheegayo waa aniga, halka kuwa qaarna ay ku tilmaameen wardaxaashi ninkeeda in uu yahay wadaad diintiisa iska dhowrta, kuwa qaarna waxa ayba sheegeen inuu ahaa madi mar horena uu xijaabtay. isku soo wada duuduubo hadda sheekada waxaa soo galay Cabdiraxmaan Darajo oo Soomaalidu aad ay u wada garanayso. waxa uu sheegay in uu yahay wardaxaashi ninka ay wada joogeen, hadalka ayaana uu dhaliyay in gabadhii laga furto, isla markaasina dhib badan uu ku abuuray. inkastoo wardaxaashi waqti fiican la qaatay jacaylkaanu wadaagnay walwalba ku dhammaaday, wacad baanu lahaynay heesahad wadoodeen baa qalbigeeda waxyeelay inay wiigani qaado walaalkeed sharcigiisa Washington igu geysaa warku noogu dhammaayay idinkaan naga waalay. wantan ay mar dhexdaasa igu siisay wajaale shalay bay la wareegtay masallaa wadadiisa fiilo weyn oo ku jeeda warqaday ku saxeexday hadda way kala jeexday. hantideeda wallaahi wakiil baan ka ahaaye Kaaba ay heedho walaal wanaagaad igu sheegtaan gabadhaydi ku waayay. haddii uu wadnahaaga kalgacaylku wareemo iga kaa weheliyeelay min yaraad ku wacnayde marka ay wardaxaash wallacdee bila joogtaan aroosaad la wareerto waddan aanay ogeynba kaaga waabi lahaaye innagoon wax bislaynin maxaad ii wanjalaysay. waxay u muuqataa sheekadan inay noqon doonto mid aad u daba dheeraato, sababtoo ah Cabdiraxmaan Darajo iyo Ayaan Kaabo waxaa dhex martay maansadii la oran jiray iPhone ee aad u caanbaxday, isla markaasina labadooda ay isku jawaabeen. hadda waxaa la filayaa in dhanka Kaaba ay sidoo kale u soo jawaabi doonto Darajo, maansadana ay noqon doonto mid aad u daba dheeraato.